نبي محمد aan ku salino moobilada hal xidho moobilada dhaqdhaqaaqana hal yareeyo maxkamaddu way noo furan tahay soorayaal maxkamadda sharafta leh waxaan maalintii labaad maxkamadda hor keenay maanta ay bishu tahay 11kii bishii koowaad 2023 sideed sano kuwaas oo loo kala qaybiyay laba qaybood dadka gudoomiye garsoorayaal nimanka Yamaniyiinta ah iyo ninka Soomaaliga ah waxa lagu soo eedeeyay inay wateen doontii hubka sidee ka soo caariday magaalada Bandarbayla saraakiisha baaristu markay baareen markii ay ka baaraan degeen markii cadeymo ururiyeen waxa u soo baxday in shanta nin ee kruuga ah aysan waxba ka ogaan waxa doonta saaran shanta nin oo kala ah Ahmed Sabit Adow Basim Mohamed Umar Ali Mohamed Umar علي محمد عمر كله محمد أحمد علي شنتانين waxay ahaayeen kuriga doonta saaraa markay saraakiisha baaristu kiiskan baareen markay cadeymihii iyo iyaga wax ka qoreen waxay noo soo gudbiyeen inaysan ogeyn waxa doonta saarnaa sidoo kale saraakiisha baaristu waxay cadeeyeen in naaxoodihii doonta Abdi Ismaaciil Sayfi ninkaas oo ahaa naaxoodihii doonta waday oo isagu doonta iyo wixii saaran oo mas'uul ka ahaa isaguna wuxuu qirtay garsoore hortii in uu ogaa doonta iyo hubka iyo wixii sidii laakiin kruugii shaqaalaha ahaa waxay saraakiisha baaristu cadeeyeen in doonta oo ran kruuga la soo saaray marka sida daraadeed saraakiisha baaristu waxay kala noqdeen eedii madana gudoomiye annaguna waxaanu kala noqonnay eeda maadaama ay soo cadeeyeen inaysan waxba ka ogeyn sida daraadeed mana gudoomiye garsoorayaal waxaan maxkamadda sharafta ka codsanaynaa in afarta Yamanida ah lagu wareejiyo qusuuliyadooda wadankoodana lagu celiyo ninka naaxoodaha ah ee doonta waday ee u bareeray inuu hantidii loo dhiibtay uu ku qaado wax dadka lagu dhibaateynayo in isagana dambigiisa lagu qaado laakiin kruuga afarta nin oo Yamanida iyo ninka Soomaaliga ah in iyaga xorriyadooda loo celiyo maadaama saraakiisha baarista ay u cadaan weydii inay wax ka ogaayeen maxkamadda sharafta leh waa mahadsantahay عبد اسماعيل انت الان في المحكمه يسالوك النيابه العامه اتهموك انك انت كنت حامل زعيمه وحامل لها اسلحه انك موجه للجماعه الشباب يعني وانت عارف بالموضوع هذا كله. لا ما اعرف بالموضوع كامل انت ولكن يكلمون عندهم شويه سلاح بس فقط عندهم شويه سلاح موجود. انت اعترفت يعني بالتحقيق انك انت عارف بالموضوع ده كله. انا كلمونا موجود عندهم شويه سلاح محمد صغير يا عبد الرشيد يشتهوا للقرية حقهم وبعدين تروح استلام حمر هذا الكلام اللي كان موجود وحولها يعني هو واسدي هو واسدي يعني لكن عبد صغير من محمد صغير ومن كمان عبد الرشيد وعبد الرشيد وصومالي ay dhaheen hubkaas waxa keenaysa boosaasna loo wareejinaa ilaa Muqdisho من دباب لما اسمع من دباب وكسو baxay ilaa meel الثمن حقه اللي موجوده فيها في الخنقه اللي بينزلها هوبيو وبعدين بيروح يستلم حمر دباب وكسو baxay هوبيو كدجينا هوبيو بعدين حمر وجينا البحر عبر البحر طريق البحر wuxuu dhahay dubaaban ka soo baxay laba qofooda aniga oo Soomaali ay soo saareen oo ogaayeen hubkaas إن أنا سوق هذا من دباب إلى هوبيو منطقة الصومال منطقة الصومال كلها تحت هوبيو له مركي يوكا كلا وريجان يوكا قاعدنا مقدشو صح؟ شوية موجود عندي سام بطل هالقرية حتى هوبيو بعدين ما نروح نستلم هوبيو كده جينا إنه هوبكاس يوكا قاعدنا بعدين حق جينا يوكا حمر جينا يعني خرجنا على ذا الكلام أساسا كسوبح الاتفاقية ده ريال هذا أنا قلت هنكسو إذا وين تاو محكمة خيرتي إنه ودي هوب دون هوب سدي إنه هوب كأود ورا الجحسو هذا وصلنا أنت وقرتوي إنه دونتاس هوب كسيدي ونكد جين لها لوكاس مركا هذا أنت أنه هينو أنت سوي
ninkaas uu hub waday hubkaana dadka lagu dhibaateyn lahaa ilaahay baana dabayl u soo diray oo dadka qabtay maxkamaddu waa mahadsantahay cabdi ismaaciil sayf waxaa ka dhiman oo aan galka ku jirin hubkii iyo doontii in gacanta lagu hayo waxaa kaloo dhiman in qareen uu helo oo qareen loo qabto marka maxkamaddu waxay amraysaa in qareenna loo qabto hubkii iyo doontii uu wadayna lagu soo daro galka oo maxkamadda la hor keeno mudane gudoomiye garsooreyaal waa run ninkaan qareenna ma leh sidoo kale ma hayno exhibitkii lagu qabtay sida hubkii iyo doontii sida daraaddeed waxaan warqad u qori doonaa hay-adaha baarista oo galka keenay si ay u soo dhammaystiraan ninka hubkii lagu qabtay iyo doontii lagu qabtay in meel lagu sheego marka waan qaadan amarka maxkamadda waana raadinayna insha allah gudoomiye garsooreyaal cabdifataax shalay baan maxkamadda hor keennay waxaan ku soo eedeynay cabdirasaaq shalay baan maxkamadda hor keennay waxaan ku soo eedeynay inuu u adeegay ururka argagixisada al-shabaab inuu muddo 10 jeer wax u qaaday 8 jeer oo ka mid ah urur raashin u qaaday 2 jeer oo ka midna uu dad u qaaday isaguna maxkamadda horteeda waa ka qirtay sida daraaddeed maxkamadda sharafta waxaan weydiisanaynaa in lagu xukumo ciqaabta ay dhigayaan qodobada aan ku soo eedeynay maadaama uu urur argagixiso og yahay uu adeegay sidoo kale mudane gudoomiye garsooreyaal galka waxaa ku jira waraaqo caafimaad oo la leeyahay maskaxdu ka xanuunsan yahay marka warqadahan inay maxkamaddu taxqiijiso oo ay maxkamaddu fiiriso laba waraaqood baa ku jira galka oo leeyahay ninkaas waa xanuunsan yahay marka maxkamadda laga rabo inay cadeyso maxkamadda sharafta loo maasanta maanta taariikhdu tahay 11 January 2023 oo ah jalsadii labaad eedda lagu soo eedeeyay muwakkilkayga Cabdirasaaq Axmed Cismaan maxkamadda sharafta waxay noo ogolaatay inaanu soo gabagabayno maadaama shalay aan waxaanu ka hadli lahayn oo difaaca aan hore u soo gudbiyay iyadoo qoraal iyo iyadoo afa maxkamadda sharafta ujeedo gabagabo anigoo qareen Saciid Khaliif Muuse qareen oo Cabdirasaaq Axmed Cismaan waxaan maxkamadda sharafta lagu soo gudbinayaa gabagabadeeda waana sida tan waxaan maxkamadda sharafta lagu cadeynayaa inay ku dhaceen muwakkilkayga xaalado caafimaad darro oo hadda sida uu noo sheegay in kala yahay xeeraalinta inay caafimaad darro hayso oo la geeyo dhaqaatiir laba ah intaan ogahay oo la ehelku ii sheegay isagu ilaa xoogaa caafimaad darro iga muuqatay wax badan buu khaldan buu ii sheegay laakiin ehelku ii sheegay labada warqadoodna waaba hayaayo hadda maxkamaddu hadaynu inaan la wadaago waa jeclaan lahaa Dr. Gaboose iyo Dr. Xabeeb oo labadaba qaamirsan qaybta dhimirka oo loo geeyay xagga caafimaadka weeye mideeda kale waa runa muwakkilkayga waxa la yiri waxbuu qaaday ninka noocaas oo xaaladiisii nooca tahay weeye oo xagga caafimaad darrada iska xanuunsanaa hase ahaatee ay ku dhacday khasab iyo hanjabaad iyo cabsi gelin inta la sheegay 7 marna waxbuu qaadaa la yiri waxa weeye wuxuu qaadana waa raashin sida la sheegay iyo wax la mid ah oo aan waaweynayn hub ma qaadin rasaasna ma qaadin kaliya intaas lagu soo eedeeyay maxkamadda sharafta leh sida darteed maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa inay aad u tixgeliso duruufaha caafimaad oo muwakkilkayga haya iyadoo tixraacaysa warqadihii caafimaadka Dr. Xabeeb oo Muqdisho iyo Dr. Gaboos oo Hargeysa waxaan kaloo maxkamadda sharafta ka codsanaya inay xorriyadiisa u celiso iyadoo aad tixgelinaysa sida sharciga islaamka uu qabo قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم على الثلاثة وعن النائم حتى يستيقظ وعن السبيل حتى يبلغ وعن المجنون حتى يعقل قاعدة فقهية وحيرانيسا لا اجتهاد مع النص دستورك دولة بلدان قضب كيس سقالات wuxuu leeyahay wax kasto sharci islaan ka soo horjeeda waxba kama jiraan maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa in xorriyadiisa loo celiyo muwakkilkayga gabagabadii qoraalna qoraal iyada gabagana waa hayaa waatan Allah maxkamadda sharafta leh waa mahadsantahay assalaamu calaykum Cabdiraxmaan Maxamed Axmed Abdi wuxuu ka mid ahaa dadkii aan shalay 10 bishii aan maxkamadda hor keennay waxaan ku soo eedeynay in isagoo macallin dugsi ah isagoo imaam masaajid ah inuu uga faa'iideystay shaqadii dadku ku aaminay inuu ugu adeego al-shabaab
tusaale ahaan inuu ciyaalkii loo geeyey oo ku tashkiiliyo shabaabnimada mar laba in masaajidkii loogu dhibay inuu dadku ku cibaadaystaan uu ka dhigay meel uu al-shabaab ku soo dhaweeyo maxkamadda horteeda wuxuu ka qirtay muddo dhowr jeer ah inuu al-shabaab halkaa ku soo dhaweeyey oo xubno ka mid ah uu cunto iyo halkaa ugu geeyey sidaa daraaddeed maxkamadda sharafta leh waxaan weydiisanaynaa in lagu xukumo ciqaab u dhiganta maadaama mas-uuliyaddii lagu aaminay uu uga faa'iidaystay inuu curur argagixiso ugu adeego maxkamadda sharafta leh waxaan ka weydiisanaynaa in lagu xukumo qodobada aan ku soo eedaynay ciqaabtay dhigayaan maxkamadda waa mahadsantahay wuxuu ahaa macallin qur-aan oo tuulo jooga sideedaba dadka iyo dalka Puntland wax dhiba uma geysan ilaa inuu wax baro maaha mana jirto eed saaka fulaysa oo lagu eedayn karo macallin qur-aanka maxaa jira lama hayo cid shabaab uu ku biiriyey fiiri qofku waxa xeeraantu ku eedaysay tashkiilin uu ummadii uu wax u dhigay tashkiiliyey lama hayo hal qof oo shabaab ku biiray oo uu sabab u ahaa lama hayo ficil uu shabaab u qabtay oo waxtar leh oo ummadda dib u keenay niman buu khasab cunto uga doonayay buu ku siiyey fiiri waxa khasab lagaga dhigay inuu raashin siiyo waana siiyey khasab bay ku cid ka celinaysana ma jiro tuuladu ka celinmay ninkii geeyay ka celinmay dawlad ka celinaysana ma jiro khasab bay ku ahayd inuu raashinka u kariyo waana ku kariyo aslan qofku haddii khasab wax lagu siiyana ma fulo ikraah baa la yiraahdaa waa macallin quraan wax dhiba inoo geysan Soomaaliya uma geysan Puntland uma geysan ciidan uma geysan dadweynaha uma geysan shabaab intuu soo kaxay dadkii ma dhixgelin ma shabaabayn hub ma qaadan cid dagaal ma gelin maxkamadda sharafta leh waa muwaadin Soomaaliyeed oo aan nina dhib u geysan oo raashig noo kari baa lagu khasbay waana u kari haddii dambi tahay maxkamadda iyada u taal maxkamadda nooga aqoon roon wixii shariicada islaamka iyo qaanuunka gafku ah sida daraaddeed waxa maxkamadda ka codsanaya muwakkilkayga in xorriyadiisa loo celiyo damaanad buu awal dalka ku joogay iyo nin baa mas'uul ka ah saakana ehelkiisa fadhiya in lagu wareejiyo maxkamaddu waa mahadsantahay madaxweyne gudoomiye garsoorayaal shalay waxaan maxkamadda hor keenay eedeysane Cabdifataax Cumar Faarax kulli hadda waa gabagabaysanayaa madaxweyne gudoomiye garsoorayaal Cabdifataax Cumar Faarax wuxuu safarkiisa ka soo bilaabay Muqdisho markuu Muqdisho ka soo tagayay wuxuu toori ku soo dilay nin ka mid ah muwaadiniinta Soomaaliyeed ee Muqdisho ku nool markii uu gacan ku dhiglimadii la cararay gacan ku dhigliyaal buu tagay wuxuu u tagay ururka al-shabaab halkaas ay tababar ku galiyeen waxayna u soo direen buuraha Calmadow ee Puntland wuxuuna maxkamadda horteeda shalay ka qirtay inuu muwaadin Soomaaliyeed toori ku soo dhuftay inuu ururka al-shabaab ku biiray inuu tababar u galay inuu Puntland u yimi inuu dadka reer Puntland dhibaateeyo sidaana ay ugu soo gashay ciidamada booliiska iyo ciidamada amniga inay gacanta ku soo dhigaan sida daraaddeed waxaan maxkamadda sharafta ka codsanayaa in loo xukumo dil toogasho ah oo ah kii uu xamar ku dilay qisaastiisii iyo kuwii intii uu Soomaaliya joogay Puntland uu joogay dadka uu ku dhibaateeyay wuxuuna ka mid ahaa dadkii weerarada ku qaaday fariisimada ciidamada Puntland ee afur maxkamadda sharafta loo maasantahay soo qaraar ma hortiin ma joogo isaga weydiiyo ka shalana waa qirtay haddana ugu celiya iyo cidii dhibanaha ka ahayd ma isaga ma garanaynba toori buu ku dhuftay cararkii uu al-shabaab u galay shalana maxkamadda horteeda ku qirtay laakiin xamar waa inta leegtiin waa ogtihiin maalintii taas qof baa ku dhimata marka qofkii magaciisa iyo waxa ma laakiin annaga hadda wuxuu nooga eedeysanayaa isagoo shabaaba qiraalan la ah maxkamadda horteeda uu ka qirtay dambi inta ka weyn oo anagu aan sheegay maxkamadda horteeda ma jiro maxkamadda waa maansantay تناقض الدعوة بقى كجرت أد حفيزك حلالنت دعوة دي سويس كهر ما نيسا ما يقان عدة وشيء ويت ما يقان عدة وليه وحبال الدلي أدي سنة واسطة أدي سنة كمجد أد حفيزك حلالنت كمجد ورك أهل بودلي قبل ذو واحد تهاي محكمة شرفت له واحد قبل قبيلية مر هدي حفيزك أد حلالنت وسكهر ما نيسا mar haddii aysan eediisa ku jirin cidda uu leeyahay waxbuu dilay
mar haddii saaka ayan dacwo ka furayn eedaas xamar ka dhacday oo uu sheegayo isagay ku koobanta ma hayno mana dilin muwakkilkaygu waxna cid uma geysan waxaa shabaab qafaalatay isagoo 13 jir oo caruur ah waa caruur 13 jir saakana wuxuu jiraa oo uu saaka jiraa waa 19 waxaan ku gabagabeynayaa maadaama ilmo caruur ahaayo la qafaashay intaana uu iyaga ku leekaaday joogana dad iyo dal uusan aqoon maxkamaddu in ay ehelkiisii u dirto ehelkiisii in la raadiyo ilmaha habowga ah in ehelkiisii loo celiyo maxkamaddu waa maadsanta mudane gudoomiye garsoorayaal ee sanaa maxkamadda hortaagan jaamac cali axmed joodhaa ina khadiijo maxamed axmed wuxuu ka mid ahaa ciidankii booliiska ahaa ee dowladda puntland ee lagu xereeyey xerada xerguble oo kaasoo dowladdu kharash gelisay si uu dalka iyo dadka ugu anfaco laakiin tababarkii iyo shaqadii iyo kharashkii la geliyey wuxuu u bedelay inuu ugu adeego ururka argixisada al-shabaab ee dhibaateynaya shacabka ummadda Soomaaliyeed iyo reer Puntland wuxuuna u qaabilsanaa isagoo hal mar buu qirtay inuu raashin u qaaday laakiin mar hadduu qirtay hadii marar badanna waa u qaaday sidaa daraadeed waxaan maxkamadda sharafta la weydiisanaynaa in lagu xukumo qodobada aan ku soo eedeynay ciqaabta ay dhigayaan maadaama isagu uu ka dambi culus yahay qofka shacabka ah waayo ciidanku dambiga ay galaan waxay ka culus yihiin qofka shacabka ahi dambiga uu galo sababtoo ah askari uu yaqaan argaxiso waxay tahay uu yaqaan dhibkii dalka ku hayso tababarkii la baray iyo dareyskii wuxuu uga faa'iideystay inuu argaxiso ugu adeego maxkamadda sharafta waxaan weydiisanaynaa in lagu xukumo ciqaabta ay dhigayaan qodobada aan ku soo eedeynay maxkamadda sharafta loo maasanta muwakkilkaygu xilliga uu wax qaaday ciidanka booliiska ma tirsanay khasab bayna ku ahayd waxaana sheegaya qodobka 303 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed qof kasta naftiisa inuu shariicaduna waa ogosha oo naftaada inaad ama been ama ficil ku badbaadisaa waa wax sharci ah sideedaba maxkamadda iga aqoon roon intaba sidaa daraadeed muwakkilkaygu odayaashiisii baa marag u ah in la khasbay oo jooga oo uu uga dacwooday oo ay ku dacweeyeen oo yiraahdeen ninkaas ama waa jaasuus oo anagu soo jaasuusaya haddii kale waa dilaynaa ama naga kacay ama alaabta noo keeno khasab buu ku geeyey maxkamadda sharafta waxaan codsanayaa in xorriyadiisa loo celiyo maadaama la khasbay khasab wax laguma xukumo maxkamaddu waa mahadsan mudane gudoomiye garsoorayaal labada eedaysane waa isku gal waana isku eed waxaa laga soo qabtay deegaanka Cildaahir waxay ka mid ahaayeen ururka argixisada al-shabaab waxay kaga biireen gobolada koonfureed waxay u yimaadeen deegaanada Puntland inay dadka Puntland dhimaateeyaan eedoodii shalay baan maxkamadda u soo jeedinay waxay shaqada hayeen dagaaladana way ka qayb galayeen sidoo kale awrta ayay saadka ay ku gudbin jireen dhaawacyada wuxuu ka mid ahaa raggii galgala meeshii markii la weeraray afur raggii u waday awrta oo dhaawac loogu qaaday sidaa daraadeed maxkamadda sharafta leh shalay bay horteeda ka qirteen maanta iska gabagabadii waxaan maxkamadda sharafta la weydiisanaynaa in lagu xukumo dil toogasho ah oo dhibaatayntii ay dadka reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeed u geysteen maxkamadda sharafta loo maasanta gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh muwakkiliintaydu ninkani 12 jir buu ahaa maalintii ay ka kaxaysteen gurigooda ilmaha yar iyo arigoodiiba isku subax bay kaxaysteen riyasa ka abu la socday wuxuu ahaa neef ariya oo ay wataan fiir sidaa daraadeed awrtaa loo diray labadaa qof awr nin loo diray in dil toogasho ama qanso u qaato maadaama ay shabaabku ka naxeen caruurnimadooda oo awrta ay ku qaybiyeen awrta ay rabtaan innaga oo mas'uuliyiinina waaba ka si fiican sidaa daraadeed waxaan codsanayaa in lagu wareejiyo eheladooda maadaama aysan nina dhib u geysan dadkeena iyo dalkeena midna dhib kama geysan awr bay raaci jireen bas waxa awr inoo dhintay awr bay raaci jireen taadsoon maxkamaddu waa gabagabay waxaan ku gabagabay in xorriyadooda loo celiyo maxkamaddu waa maadsan bismillaah maanta taariikhdu tahay 11kii bishii koowaad 2023 maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee shanta gobol waxay u fadhiisatay kiis ciqaabeed ay ku eedeysan yihiin 15 eedeysane eedeysanaha koowaad cabdifataax cumar faarax ina nuuriyo cumar 19 jir ah
eedaysanaha labaad Mukhtaar Caliyow Ibraahim ina Khadiijo Xuseen 18 jir ah eedaysanaha saddexaad Cabdiyow Xasani Xawi Eeno Cali 25 jir ah waxay maxkamaddu ku xukuntay midkiiba 15 sanadood oo xariga kadib markii ay ku cadaan weyday inay geysteen dil maxkamadduna ay si qoto dheer shariicada islaamka ay u daaracatay eedaysanaha afraad Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi ina Sooco 26 jir Jaamac Cali Axmed ina Khadiijo 23 jir waxay maxkamaddu ku xukuntay 10 sanadood oo xarig ah Cabdirasaaq Axmed Cismaan Buux ina Dahabo Xirsi 32 jir kadib markii maxkamaddu aragtay warqadaha caafimaad ee dhakhtarka ee laga soo gudbiyay waji ahaan iyo arag ahaanna ay aragtay in xanuunka dhimirka oo uu ka muuqdo waxay maxkamaddu ku xukuntay 5 sanadood oo xariga waxayna u cuskatay xeerka ciqaabta 164 sidoo kale Cabdi Jibaar Maxamed Mukhtaar Obsi 20 jir Obsadiin Cabdallah Baasha Siyaad Khaliif Abubakar oo xeeraalinta iyo hay'adaha baaristu kala noqdeen eeda waxay maxkamaddu u celisay xorriyadooda Siyaad Khaliif waxa lagu wareejinayaa eheladiisa iyo caaqilkiisa dhammaan kurugii doonta iyo naaquudaha maxkamaddu waxay go'aamisay in dib loo celiyo laguna keeno eedii lagu soo eedeeyay ee hubkii iyo doontii lagu soo eedeeyay oo lagu qabtay hay'adaha baarista iyo xeeraalinta oo ka rabnaa inay 10 bari gudahood ku keenaan waxa ka furan 30 bari oo rafcaan ah wabillahi tawfiiq maxkamaddu way noo xirantay